السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليالو ومهدسنتهين كوني كونجر كسوق قشين حفلة دان قالقة مقعي وحالي هذا شكري عثمان محمد عبي حكم قاعد يا عثمان إثيوبيا قف عاد عنه وها مهدسنتين عبي الله نحريستو وها ميركا شباب هذا هو صفر 8 years دقالك انتو دعين walaalkay Cabdiraxmaan Ismaan Maxamed sagana caan u ahaa baalbaal ku magac dheera qof aad u magac dheer u ahaa tal iyo dad waxaan ka soo jeedaa kulligood leadership quality la oo kulligood leaders ah maxaa la dhahaa waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan represent gareeyo muxuu ahaa reerkayga familkayga iyo dhammaan biimaal Maxamed saa u dhintihiin waxaan aad ugu faraxsanahay maanta xafladan runtii ma aha mid ku timid dheedheel waa mid maxaa la dhahaa loo soo fikiray waqti la geliyay loo soo jeeday habeeno fara badan markii aan aragnay in maxaa la dhahaa dadkeena ay aad ugu baahan yihiin dad u noqdo voice oo u hadlo qof walba historygiisa asagaa qortay waa in anaga historygeena qoranaa anaga inuu qof kale historygeena noo qoro ayaa maanta igu kaliftay aniga maanta inaan istaago oo aan hadlo oo aan ma aragtay ka muuqdo social media ma fahanteen marka waxaan idinku baaqayaa dhalinyarada ayaa aad u jeclaan lahaa inaan address gareeyo dhalinyarada waxaan aad u jeclaan lahaa war dadka waxa wada iyo dalka waa dhalinyarada haddii ayna kicinna dadkii hore waa tageen waa inaa dadkeeni ahaa halgamayaasha ahaa oo maxaa lahaa legendska ahaa aan meel walba ku xusno ka hadalno maxaa la wixii soo qabteen aan sheegno oo aan isku dayno in anaga historygeena aan ku sameeyno revive oo aan soo nooleeno haddayna saa sameynin waa baaba qof kale kuma istaaga kuma qoraay mar kale waxaan idin kaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah wallahi noo soo hurteen idinkana waa ku mahadsantiin waxaan hadda meeshaan u istaagay waxay tahay anaga taariikhda waxaa la yiraahdaa kaliya biimaal waxay la dagaaleen maxaa la dhahaa talyaaniga ma fahanteen taas waa qoran tahay nobody can deny library ku yaala talyaaniga iyo waxa jiro maxaa la dhahaa street darbi ku yaala ay ku qoran yihiin biimaal dadkii la soo dagaalay talyaaniga anaga ma xusaay talyaaniga aan la dagaalno ayaa na xusaay anaga magaceena yaqaano library taala ma fahanteen oo library yaala waa ku soo kar waligeey maqli jiray ma fahanteen haddana way jiraan dad taariikhda hore oo archive haysto taariikhda inta lagu koobi karo xaqeedana ma siin karno boqortooyo biimaal aan xaqeeda maanta inta kuma siin karo madasheedina ma aha intaana awooda intaan aan u qalmin ha ka raalaato boqortooyada biimaal marka dadkeeni halgamayaasha ah way farabadan yihiin mar raba inaan cidna aan xusi waayo oo aan ma aragtay ilaawo laakiin waxaan ku qasbanaaday few of them because waqtigoo yar idinkii daalan inaan ku dheereey mar dadkeena way badan yihiin laha halgamayaal fara badan aan leenahay dad dhinta Allah u naxariistay iyo dad noolba waa leenahay dadka hadda nool iyo dadka dhintay hadda aduu Ilaahay raali noqdo laba qof oo maxaa la dhahaa aad iyo aad ayaan ka qaadanaynaa way badan yihiin laakiin dadka waxaan ka cudur daaranayaa haddaan qof xusi waayo inaan ma aragtay aan liidhin maxaa la dhahaa way xusi weyd dadku waa fara badan yahay laakiin waqtigoo nagu ciriiriya awgeed iyo inaan dadkeena dhalinyaradeena aan barno awgeed waxaan hayaa laba video 2 minute ah oo laba qof oo halyeeyaal ah midna gabar tahay midna uu nin yahay oo aan rabo inaan la qaybsado jaaliyada iyo dadka ka soo qayb galay marka haduu Ilaahay raali noqdo mid u sheegaya marka dadka aniga aan magacaabo hadeertaan waxaan jeclaan lahaa walaalayaal haday dhinteen Allah u naxariista dhaha una sabciya waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeyso halyeeyga Cabdi Warsame Isaaq oo ahaa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wuxuu kamid ahaa goolihii sare ee kacaanka dadkii isu kamid ahaa waa nin taariikh dheer Allah u naxariista adeerkay haduu Ilaahay raali ka noqdo maxaa la dhahaa waxaan soo diyaarin doonaa halyeeyada aan ka hadleen oo dhan ayaan soo diyaarin doonaa taariikhdooda markii xiga waxaan ku xijinayaa Professor Ibi oo asagana nin caan ah oo maxaa la dhahaa ahaa wasiirka wuxuu ahaa wasiirka isla markaana wuxuu ahaa prime minister ku xigeen u ahaan jiray ma fahanteen dad taariikh dheer leh oo magacaad dheer aan ugu xiran laakiin anaga xusin nobody xusaay ma jirto waxaan ku xijin lahaa oo aad u jeclaan lahaa inaan ku xijiyo marka saddexaad Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo caana oo la yaqaan asagana Allah u naxariisto
وحوها وسيرك عريمها الدبادة أمباسطورك بلجيم أيو أهانجري راشيو كأها أمباسطور عرب ليغ نوكو جري على ونحريستو أساقنا يوغو سبعية إلهنا ونحريستو waxa kale oo aad u mudan in aan leenahay dumar ayagan haliyayaal ah oo aan la soo koobi karin maxaa la rag challenge gareeyay oo wax farmada soo qabtay oo hadda waxa kamid ah oo magaceeda aan rabaa inaan xuso Allah u naxariisto oo ah well known maana Cabdiraxmaan Ali Ciise maana waxay qabatay inta kuma soo koobi karo waa qoftii dagaaladii socda iyadoo awoodda well educated ahayd 5 degree haysato saddex lagu ku hadasho inay dadkeedu istaagtay ay dhex joogtay ay diiday marka kuna dhimatay marka cadkoodii u soo goysay markaas waxay soo aruurisay wax alla wixii ciyaal agoon ahaa ee aabiyaashood la laayay xeerada la dhaho Ayuub xeero dhaha oo 10000 ka badan ahna way ku aruurisay waxbay ku bartay maanta Mareykanka la joogan ciyaalkaas mid kamid ah habeen hore la hadlay inta wax bartay ee ma aragtay ee soo saartay niyada u dhistay kaligiin mitiin ee dhahday ee waxay uga faa'iideysay aqoonteena waa inaan uga faa'iideynaa dadkeena maxaa la dhahaa noo baahan qof walba aqoontu leeyahay qof aan wax qaban karin ma laha qof walba Ilaahay wuxuu siiyay talent oo qofka kale lahayn haddaan isku darsano talentiyadeena wallahi waxaan sameyn karaa Soomaaliya oo dhan aan daafici karnaa Soomaaliya oo dhan soo celin karnaa ma fahanteen haddana waxaan jeclaan lahaa 2 minutes inaan maana ila fiirsataan iyo ciyaarkay soo korisay لايف كهات رمية لايف كهات Il sostentamento dei bambini è in buona parte garantito da un pastone energetico fornito dalle Nazioni Unite, l'Unimix, integrato da ciò che il villaggio riesce a produrre o ad acquistare. xeradaas waa xeradii Ayuub waxay ku taalaa marka ilaa hadda way dhisan tahay way shaqeysaa ma fahanteen 6 qofood oo iyada ka dambeysay life loo waayay life lama hayo way dhinteen ayagoo rabeen inay iyada bedelaan oo ay ma aragtay socodsiiyaan dad Talyaaniga ka imaaday ahaayeen luqada aad u yaqaan because waxa laga fangareyn jiray Talyaaniga xeradu waxa fangareyn jiray Talyaaniga markii la arkay in ma aragtay xerada ay si fiican u shaqeynayso hadda anaga isbaabiinayna dadkii u kacay ee ka dambeeyay iyagiina waa la afduubay ilaa hadda life kuma heeno waa ilma adeerada nool i geeri ma heeno 4 iyo 5 waxay ahayn ma aqaano ayaa la afduubay oo ku maqan ilaahay mahadiis maadaama ilma agoon ahaayeen xeradu wali way furan tahay ilaahay xaqiis baa laga caawiyay agoonta nabigeena kaleey salaatu wasalaam waa ogtii sidoo uga hadlay u jecel yahay qofka agoonta caawiyo ilaahay nabiga uu jeclaa xeradii inay dhimato la rabay oo dadkeedii la afduuba la baabi'iyay qofkii aasaasana ilaahay qaatay ilaa hadda way noosha way dhisan tahay wax alla wax qoodiye kala sheeg way shaqeysaa ilaa hadda hanno dato vita ad attività commerciali wala caawiya way shaqeysaa deewli La donna è il pilastro della Somalia. Se qualcosa è rimasto in Somalia per 14 anni, grazie alle donne, perché quelli che hanno studiato, quelli che non hanno studiato sono stati gli unici che sono riusciti a lavorare, a le donne come latte con altri di questo è riso, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل محمد أمان حاجو وهايدنا أيضا وإحنا صوبرتي أيضا صو قرب خوتي أنا أقوم أسكاه ومقالة مركز قحكو إيماني إلا وحبرشة أنت هذا أقرنا يو أيضا أنا صوبرت إلهي جنة الفردوس أكبراوي إن شاء الله. وما سنت ما شاء الله إله نحرست ما نوين بدنا ويفديان ما نيالو كعه كع يا
waxaa hadda noogu xijinayaa qiso aad iyo aad u xun badan oo ay taabatay kana dambeysay maanta inaan inta soo istaago aadna u xanuun badan oo ah guddoomiyaheeni aan jeclayn ee 30 sano diiday inuu harsado hoydo seexdo ka dhiidhii in dadkeena maalin ilaah keenay ay ku jiraan hal in loo dilo ma soo koobi karo aniga haddeer taaneeta magaciisa iyo maxaa la dhahaa iyo ammaantiisa laakiin wax yar waxaan la wadaagi doonaa asagana video kamid ah magaciisana waxaa la dhahaa allaha u naxariisto idin kaga mahadnaqaa mar labaad mar saddexaad gogosha fiican Abdullahi Waafo oo isku naftii hore allaha u naxariisto waad ku wada hadasheen aad iyo aad ayaa u bogaadinaa waan soo dhaweynaa asagoo sooman u dhintay aliila gacan ka xaqdarana dishay ilaaha u naxariisto aymaan habadnaada Soomaalidu way wada hadashaa haddii la wada hadlini waxba ka soo baxayo wanaag ayaa loo dhawaanayaa waxay ka tahay markay tahay wax ajir laga helaayo ilaahay agtiis loo dhawaanayo qof kasto waxa sheego koosi xun waxa u fasiro yaan loo joojinin wanaag halaga raaco ilaahay agtiis loo dhawaado intaas waa idin kula dardaarmayaa mid kale okay waxaa hadda dadku ay farbadan yihiin waxaan kala xusaa laba qof aan amdan maxamed abuukar geytaani asagana oo ah qof aad iyo aad u cusub adeerkan oo haddana oo nool wali ilaa cimri dheer cibaado la siiyo wuxuu degan yahay Canada adeer geytaani wuxuu ahaan jiray member of parliament uu ahaan jiray marka wax fara badan uu haaya asagana waxaan leenahay haduu video fiirsada adeer macaan waa ku salaanay your dream is going to come true ilaahay idinkiis dhalinyarada ayaa qaadi doonto legend tahay legacy-gaaga waa sii kaxeen doona waa sii wadi doona insha Allah waxa noogu xigo Nuur Faqi Cusmaan oo asagana nin qaali ah oo ah gudoomiye ku xigeenka wuxuu ahaan jiray iskaashitooyinka ahaan xildhibaan golaha dhexe uu ahaan jiray dawladii dhexe wuxuu ku nool yahay maxaa la dhahaa Australia Melbourne hadda ku nool yahay adeer macaan hadaad dhageysanaysid annagana waxaan ku leenahay muxuu ahaa jiro joog maxaa la dhahaa alaha dheere cimrigaaga legacy-giina insha Allah kuwii wadi lahaa ayaan nahay waan idinka maaragtay farxin doonaa insha Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh